وعنا ونكسن دلهان تيمبا ومركلية برنامج كني جونجار برنامج كجونجار وعن كل الاستاجينا شبكة قابل السنة على الشباب سوقرين تقرحية مقدشو أي بربرية سردون كصوماليا النساء shabakadan waxaa lafdhabar u ahaa xasan macalin bare xasan boy oo 22 jir ah iyo sayid cali aadan nuur steamboy oo abti u ahaa xasan waxaana labadooduba ay ahaayeen rag aad u isticmaala balwada noocyadeeda kala duwan kuwaas oo shilimaad ay ku qayilaan ku bedelan jiray inay gawaari qaraxyaha soo geliyaan magaalada muqdisho si loogu xasuuqo shacabka xasan macalin bare waa wiil dhalinyaro oo ay noloshu ku adkaatay kana saaqiday waxbarashada waxaana uu kaga tagay fasalka afraad ee dugsiga hoose iskuulha wataga المين أفراد أبجار كده كبح shaqadii ugu horeysay oo qabto waxay noqotay inuu awowgiis dukaan u gado balse markii uu dhintay waxa uu bilaabay xalwa karin aniga markii hore asalkeyga waa ku shaqay dukaan gada jiray awowgay dukaan gada jiray awow markuu dhintay shaqadii waxay noqotay xalwa karis bant xalwan kari jiray xalwadii aynu waxaan ku kari jiray magaalada markuu kadibna waxa uu xasan u soo wareegay duleedka muqdisho halkaas oo uu ku iibin jiray dukaan ay leedahay qof dumar ah isagoo ka qaadan jiray qadar dhan $2 maalinkii dukaan waxa iska leeyahay xawlada kornaa iska dukaankii aan gaday aniga gabadhii astaan dukaanka waa ka tagay dukaan waxaan ku qaaday jiray gabadh maalintii ay siinaysa mar $2 mar $1 siinaysa isagoo dukaanka ka shaqaynaya ayay salaan abtigiis oo ku dhiirageliyay inuu isaga tago dukaanka isagoo u sababeeyay inaysan mudnayn dumarka in loo shaqeeyo wuxuuna aqbalay in abtigiis uu og yahay inuu al-shabaab yahay uu kala shaqeeyo falalka argagixisanimada markaan dukaanka tagay adi wax saad uma dhahayn barnaamijkaana faraha la galay waalid hore wiilkiisa muu taar madayacay sanbir markuu arkay gaajideeda iyo waxaas markuu arkay oo wuxuu u yiri dukaankaas iskaraaf dukaankaas iyo barnaamijka iskaraaf uu yiri naag maalkeeda in wax jir ma ahan ase ahaatee aniga maxaa lahaa asiga wax ku siinaayo aniga masuuliyadda qaadayo xasan abtigiis oo doonayay inuu helo qof dhalinyaro oo ka caawiya falalka argagixisanimo waxa uu markiiba bilaabay inuu u diyaariyo shaqooyinkii rasmiga ah ugu talagalay taasoo ahayd inuu ka caawiyo geynta gaadiidka qaraxyada goobaha dadku ku badan yihiin waxa uuna u diray goob lagu barto wadista gaadiidka oo ku taala halka loo yaqaano tabeelaha ee duleedka muqdisho halkaas oo uu 5 maalin ku baranayay wadista gaadiidka أصير معنا وحوي ده باور معنا واسمه تقانا ما أنا باور واسع عندي ما أخاني مركزه مرجو ويجي باور معنا باور واسع أنا وحنا معنا كفلا هاي أنا وحوي ده دربلا هاي باور هلا كرنا أنا قوة شخصنا بسيط بيلك أوكله أنا ودي الرباس أو شخص الرباس ده أنا إلى ما بحكي سوي تجانا إلى ما بحكي سوي حصل هذا وده أتشخ ما يصير باور وتانك فائدة اوكي اري ديار واي باورتي marka waxaan ku galay aan ku shaqeysan doono baawr sabarta tabeelaha aan ku bartay macna baawrta okay tabeelaha macna baawrta oo loo kiriyaa mugti oo loo kiriyaa baawrta wareegi $1 waay baawrta macna meesha ku waday wareega soo gelinay $1 wareega soo gelinay $1 baawrta in automatic aad saga bartay hada muddo 5 maalin amal waday xasan waxa uu markii dambe abtigiis u soo jeediyay
inuu ku tababarto gaari uu og yahay inuu qarax ku xiran yahay kaasoo abtigiis ku baray habka wadista gaariga waxaana gaarigaas oo noociisu ah filar cadaan ah uu ku tababaranaya 2 usbuuc marka kale asaa gaari loo keenay waa filar tii haddana aan ku bartay tii ay dowladda igu soo qabanayso ka gudiga qorxay dowladda igu soo qabanayso macnaha anigu waxa ugu jiray gaari la keenay waa filar waana xariisan yahay أنا قرح أنا كهرني أمرنا ليه مش يجين كدي بحوجي ولا شيء راح كهرن بحوجي لا هيدا أنا سي بدو إن مركي أنا قف كوري جدا إن كل حوالي معنا نجموجي لقوايا لا وده ولا سيد أحمد شاحينا وده باركس بس كي باشالينا سيد بارك أسير باشاليني مرو معنا أو أسوأ تسيء مرو أنا وضو قاري أنا لكن أكثر كمان نحن نقول بارك سيلابو xasan waxa uu abtigiisu dhiibay gaarigii qaraxa ahaa inuu u geeyo qof ismiidaamiya balse intuusan gaarin goobtii bartilmaameedka ayuu galay shil sababay inuu qof rayida dhaawacmo waxaana uu wacday abtigiis oo qofkii waxyeeladu ku gaartay ku xaliyay lacag dhan $40 gaariyan wad waxa geenaysa uu yiri iskuska gudi qof meesh jooga la yiri ku wareeji anagna meesh waxa u dheey matay karam band aku dhabeena gaarigan inkiis u geey okay aan ku dhahay gaarigan soo waday soo dhaqaajiye meeshiano macna u socdo qadarta alle qof aan ku dhacay wadada maraan ku dhacay dilka wax gaarsiin abshaan oo waxaan dhahay aniga inaan dilaan dhaaniyo naan gaari ku dhuftay soo carar meeshii uu imaaday oo qayliyay waa ka tagay aniga baxo iyada ka tagay ninkii oo qabtay gaariga saare ninkii soo xaliyay kadib wacay ana xaafadii u socdaan soo laabtay ana xanaagsan ma soo laabtay dana gaarigan fuulay ninkii maxaa ku xalisan dhahay ninkii waxa uu aniga ana lafteeda wax kuma haysta laakiin telefoonka si sameey ninkii waa kin ku sheegay ninkii telefoonkii maana oo u sameeyay $40 u tuuray xasan waxa mar kale lagu amray inuu wada gaariga qaraxa balse isagoo aan darawal fiican ahayn awgeed waxa uu galay haddana shil kale balse markan dambe waxa ku daba jiray asirdoonka Soomaaliya oo xogta qaraxa helay kuwaas oo markiiba qabtay xasan balse intii ay soo socdeen kooxda miina baarayaasha ayuu qarxay gaarigii haddana waxa uu dhahnay waday shilka iska ilaali gaari ma hasgi aye markaan u socday markaan meeshii ku dhawaaday motor back min majaajan ku dhacay aniga waxa waaye hadda hal qof oo barnaamijka ku fircoonsan mood iska daayay horta sharafan ku socdaa sax motor back ku jirto wada faraaqi motor isaga dhacay taana macna waxay sheegay in aniga wili gaariye macna in gaari macna travel rasmi ahayn macna mood back back minta Allah waa maray meel geesta waa motodan ku dhacay madama ku dhacay kadib motor marka dama fiiriyo qof kale ha ma joogin mar waxaan asir ka socdo askara ma joogtaa markay aragtay askara meesh taagneed bay aragtay markaas ay askartii maana qori u qabatay qalo u qabtay gaarigii wado istaagay uu yiri waa istaagay in askara ay imaaday albaabku furay gaarigii maana furo ku dumiyay soo degay oo dhahay waa soo degay oo dhahay maxaa isku waale bajaada ku dhacan daanay dad ku dhacay kadib miska carray oo dhahay wax ma hayna aniga waxa waan dhahay bajaadleen waxa waan dhibkooda iska badan أنا بعرف عن ده برتوي عنده أنا أسيق الشركة دي وده هاينو مالي فريسي غاري كتير تلفون كي غاري أي سوق هذين تلفون كي أمريكا أكتر لكن تلفون أمريكا أصدقها تلفون كي أصدقها لا يعمله أصدقها أنا وافدها ما تلفون ما خبرت أمد ده ما تلفون كتاقط معنا حوالين غاري أنا أقول على جوا مت تلفون عندك يا دام كساني أنا غاري أنا أقرأ على جوا أكاسو ده نكان إن شاتي هلا سيو ده مرق أمه مرق هو ده هلا يحر اشترك اللي يسي أمه مرق هلا يحر أمه هلا يحر كركي إيجو تاين تلفون كي إيجو فيرنا غاري أقرأ xasan waan isku diyaarin isagu inuu isqarxiyo balse ahaa gaarsiye qarax qofka loogu talagalay ismiidaaminta waxa uu hadda dareensan yahay in kooxda al-shabaab iyo abtigiisa ay yihiin kuwa aan naxariis lahayn oo xitaa doonaya inay isaga lafahantiisa dilaan
دي برنامجي أو فشل من الأركان أنا بلتش إنه جاري مع آخر حماه أنا مرك حالة دي شيء كرت مركز عيد شيء كرت ملا أنا مركز دول ده حالة دي شيء كرت وحنا أمسنا أنا قدام جاري أنا صارنا الله وحنا أمسنا اللي نقرأ لها أنا كان معنا أبتي معنا اسمه أبتي قرحنا xasan waxay sirdoonka Soomaaliya oo isticmaalaya macluumaad gaar ah qabteen 26 bishii 11 ee sanadkii 2018 waxaana sida uu dhagarqabaha laftigiisu qirayo ay sirdoonku feejignaan ka qabeen gaariga uu waday ninkan iyagoo ka fogaaday inay qabtaan telefoonkiisa si ay u xakameeyaan xogta in la qabtay si aysan kooxdu u soo dirtay u qarxin gaariga uu waday balse intii ay ku jireen xiritaanka aaga uu gaarigu yaalay oo ahaa meel suuq ah oo saxmad badani ay ka jirtay kuna amrayeen dadweynuhu inay ka fogaadaan ayuu qarxay gaarigii oo sababay dhimashada 12 qof oo ku jiro dhame xooga Maxamed Muxiidiin iyo hooyadiis Xaawo Xasan Maxamed halka dhaawacuna uu gaarayay 6 qofood waa fariistay telefoonka marka loo keenay ninka oo iga celi telefoon loo keenay telefoonka ay dhana ma soo aragnay telefoonka markii maana telefoonka waa soo dhacay telefoonka waa dhawaa telefoonka waa telefoonka maana gaaro isaarnaan telefoonka marka waa soo qaaday telefoonka marka wuxuu dhacaa telefoonka hadoo qabto marka wuxuu dhahay ama gaari qaraxa asaani maqlay markaas maana telefoonka hadoo macna oo qabto ama gaari qaraxa telefoonka saas soo haayo oo fiirinayo laga baxay loo soo celiyay laga baxay loo soo celiyay markaan gaari xaq u yeelaa ana taamala ka fadnaa gaari marka qarax tirada qasaaraha ayaa ka badan lahayd intaas haddii aysan ciidanka nisa ka fogeyn lahayn aaga shacabka maadaama uu suuqaasi ahaa mid aad u mashquul badan halkan waa goobtii lagu qabtay xasan waana halka uu ku qarxay gaariga fildarka ee uu waday kaasoo loogu talagalay in dad shacaba lagu xasuuqo wiilkan dhalinyarada waxa uu joogay goob aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay waxaana uu ka sheekeynayaa sidii ay maalinkaas wax u dhaceen wallaahi maalintii waxaa arkay baawur aniga horta waxa ku jiray howsheeda shaqo waxaa arkay baawur igu soo socdo waa cararay miiskayga ku dhacay kadib markaa soo noqonay cabaar dhan baawurkii meesha soo u yeelay anagoo walaacsan naxsan shaqadeena xiranay hal mar waxaa maqalnay hal mar sabaaxan qarax oo aad iyo aad u xoog badan wixii hanti iyo wixii lacag meesha ku haystin meesheena u baaba'day anagana naftan Ilaahay baa ugu badbaadiyay meesha bismillaahir rahmaanir dad badan oo meesha ku dhaawacmay oo ku dhintay oo ku rafaasan ana ilaa hadda saahay iyo si kale waaba dareemi waaye wallahi maqaayada waa u jeedaa dhismo labaad inay gashay qaabkii hore saama ahayn waa laga bedelay cabitaankiisa miiska saameen miiska dawo burburay marka rafaad aad iyo aad xoogan badan aan soo maray xasan iyo abtigiis waxay ahaayeen kuwa isticmaala balwadaha jaadka shiishada iyo taabuuga mana aysan tukan jirin salaad waxayna ahaayeen kuwa u tababaran falalka argagixisanimo ee al-shabaab balba isticmaalin qaad iyo xanuun intifaax isticmaala abtig halkan waa gurigii ay deganaayeen xasan iyo abtigiis gurigan uma ekeen xarun ay argagixisa leedahay waxaana isugu imaan jiray dhalinyaro balwadu ay dilootay kuwaas oo halka ku qayili jiray kuna isticmaali jiray noocyada kala duwan ee balwada ujeedaduna waxay ahayd inaan la garan gurigan inuu yahay guri ay isticmaalayaan argagixisada al-shabaab meel suuq imaado jaad lagu cuno horta dhalinyaro aday qayisho jaad ay cunto horta borta asagat wixis asagat fadal lagu kulmaa ana qayl diray
مقصد نقول بوحيس أساق قرته أو كلية معناه حرارة بس إن إطلع باشالو نقصد وحيس أساق ليه ماذا مقصد معنا قف عقدة مجرد إلا قف بوديني وما أنت وحما هي ساحة إن هذا كم قبنا عمل نقول لهموي قف معنا جار قف جاد وهذا مركز وحب الوشي لك جاد بالوشينا حسن وحول ولا كما هي حجمك ولاقي دنبك وقلايا وكل أيام مواطنين صوماليين دولة قانا أوجرا دولة مرك إن كليبو دولة دام دور تهليد دايو إلا ما أنا رتني دينيس لكن هي عدالة دخبته أو نوع معنا أو مكاس نحرس لي فيرنا أنجار أنا مرة كل دولة نحرس هذا مش هيكري sirdoonka Soomaaliya waxay ku guuleysteen inay burburiyaan shabakadii uu ka tirsanaa Xasan waxayna soo qabteen horjoogihii shabakadaasi oo ahaa Xasan Abtigiis kaasoo isna la maray habka cadaaladda Xasan waxaana lagu magacaabaa horjoogahan Sayid Cali Aadan Nuur Steamboy Sayid Cali waxa uu lahaa xirfado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen darawalnimo makaanig iyo fuundi kuwaas oo ku qarin jiray xirfadiisa rasmiga ah ee shabaabnimo أبتي مركب الفندق مرنا هواي درب الواي موتول واي ساس مكانك نوع الله يا الرسول الشهاد الروح قرش الله ترى ورهونا الإسلام ما أدري الله يا الرسول الشهاد الروح قرش الله ترى ورهونا الإسلام ما حسن يا سيد علي waxay mareen habka cadaaladda ee garsoorka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana loo fariisay maxkamadooyintooda 5 Sebtembar ee sanadkan iyadoo la dhageystay eedda xafiiska xeeraalinta maxkamadda iyo dooda qareennada difaacayay labada eedaysane ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Dhamma Muumin ayaa mid u kala dhigaya eedda loo haysta raggan iyo cadeymaha ay hayaan waxayna soo bandhigeen xafiiska xeeraalinta amarag muujina ay ka mid yihiin taarikada furihii gaariga iyo marqaatiyaal ka marag furay garsoorka ciidanka hortiisa mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qiraalka eedeysanaha koobaad wuxuu ku tilmaamay oo ku sheegay yani nuqdo muhiim ku jirta kamid aheeday in uu soo wacay Sayid Cali markii gacanta lagu dhigay teleefankiisa laama amniga ay hayeen inuu soo wacay si uu xaqiijiyo goobta qaraxa gaariga inuu geeyay markuu ogaada Sayid Cali in uu san teleefan ka jawaabin Xasan gacantana lagu dhigay automatically gaariga uu qarxay waxay cadeynaysaa Sayid Cali inuu ahay qofka maamulaya ee hagaya gaarigaas ee qarax mas'uulka ah gacanta ku haya awoodda uu ku qarxay iskala isaga mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh waxyaabaha macni qiraalka oo mataqaanaa bixiyay eedeysanaha koobaad cadeynta oo bixiyay mataqaanaa markaatiga ninka dhibanaha gaariga ku dhifteen iyo xiriirka ka dhaxeeyay Sayid Cali iyo Xasan waxay cadeynaysaa in Sayid Cali uu ahay amiirka cidda iska leed hagista awoodda mataqaanaa gaarigaas inuu qarxo iyo dhibaatadaas geystay cidda ku awoodda badneed ee amarka laga qaadanaya amarka iska leeyahay inuu waa Sayid Cali mudana gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh qiraalka uu bixiyay eedeysanaha koobaad waxa kamid ahaa in uu maalmo ku baranayay wadista gaadiidka ee mataqaanaa area tabeelash Ibrahim kidibna ay tageen meel geersha kana soo qaadeen gaarigan filarka asaga lagu soo qabtay uuna u sheegay Sayid Cali gaari wadowga inta ugu dhiman inuu gaarigan ugu dhameystiray Sayid Cali inuu yahay qof qaraxyada asaga farsameeya awoodana xilligu asagu uu talagal inuu qarxiyo gaarigaas isagoo qarax ku jiro intaas cabaysan ayuu isbuuc in gaariisu magaalada ku dhaxayo ku barayo mataqaanaa wadista gaariga isagoo og oo waliba u sheegay in gaarigan qaraxa ku jiro halkuu ku jira ka soo saar ee markuu albaabada u fur arki waayay qof arki karta ma jirtay kaala ana ku baray qaraxa ku jira gaariga yani kubaysan oo buuxa ayuu wuxuu baray yani oo eedeysanaha koobaad inuu darawal noqdo gaarigan meeshii geelira oo geey karo baray inta waxay tilmaamaysaa farsamada qaraxa oo ku qarxo waxa iska lahay Sayid Cali sidoo kale qareennadii difaacaya eedeysanaha ayaa iyaguna soo bandhigay doodooda ay ku difaacayaan ragga ay wakiilka ka yihiin waxaan codsanaynaa in nimanka
laga daayo xabsiga labada eedeysanaha labaad eedeysanaha saddexaad xasan cali macalin bare maadaama ay askartii qabatay ee ninkii baabuurka waday inkaas u ahaa baabuurka qaraxa uu ka yimid oo loo malaynayo qaraxa in baabuurka uu ka imaaday waa loo malaynaya maalin baabuurka furaya ayaa qaraxay maasaa qaraxa riday lama yaqaano ilaahay anaga og ninkaas waxaan codsanaynaa in loo naxariisto oo maxkamaddu u fiiriso faalaha dembiga fududeeyo al-shabaab waxay la yimaadeen xeelad cusub oo ay maleeshiyaadkooda ula baxayaan magacyo aan ahayn abuu iyo magacyadii carbeed ay la bixi jireen waxayna samaysteen magacyo muujinaya anshaxuma iyo balwad iyagoo isticmaalaya dhallinyaro ay diloodeen balwadaha noocyadooda kala duwan xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada cabdulaahi kame ayaa soo bandhigay macluumaad arrintaasi la xiriirta eedaysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore hadday ku gabanayeen diinta islaamka oo magacyada abuu iyo magacyo diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u beddeleen joy steam boy xasan boy magacyo noocaasa isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii alkuliistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan wey dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkuliistayaasha iyo qaabkii maxaa la jiray ii sheegay ciyaalsiyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in maxkamaddu xiran tahay dibna la isugu soo laaban doono dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedeysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen sagaalkii bishan ayay ugu dambeyn maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya go'aan ka gaartay eedda loo haysto eedeysanayaashan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal kow xasan cali macalin bare xasan boy 21 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir labo sayid cali aadan nuur steen boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir saddex muxudiin maxamed axmed khaliif CJ 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedeysanaha koowaad xasan cali macalin bare waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11aad 2018 dhigay suuqa kaawagoday ee degmada wada jir gaari noociisu ahaa fil dhar cadaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedeysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen
isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa Kaawagoday ee degmada Wadajir. Eedaysanaha labaad Sayid Cali Aadan Nuur Steenboy waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada Muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsameyntooda. sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyay in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyay ku biirista kooxda Al-Shabaab qaybteeda qaraxida soo gelisa magaalada Muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa Kaawagoday 26 bishii 11aad 2018. eedaysanaha saddexaad Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu hay'adaha baarista u sheegay magac been ah. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayid Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo. sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheekh Ibraahim uu geeyay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa Kaawagoday kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday. markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaawagoday isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawagoday. markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar cadaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed. sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayay inuu baxsado hase yeeshee ay qabteen. markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintida kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa Kaawagoday degmada Wadajir 26 bishii 11aad 2018. sawirrada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa. 4 furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane Xasan Cali Macalin Barre. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy 2 Sayid Cali Aadan Nuur Steenboy ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dambiile shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho ah. 2 dambiile shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steenboy xabsi daa'in. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo. cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan. wabillahi tawfiiq. Yeah.
guud ahaan barnaamijkii gungaar waa naga inta aan barnaamijka xiga ku kulmi doono waa aniga maxamed cabdi caraaye iyo cabdulqaadir ciise oo idin leh nabaadiino.